hogaamiyaha ugu sarreeya dowladda Iiraan Mujtaba Khamenei ayaa maalintii shalay oo Arbaco ahayd waxa uu sheegay in dadkii ka dambeeya dilka Cali Larijani ay bixin doonaan qiimo aad u culus, yacni aysan nasan doonin. ruux sidaasi oo kale ah oo mas-uul sare ah oo Iiraaniyiinta ay ku tashanayeen ayaan beegsanaynaa ayuu ku hanjabay. wuxuu carabka ku adkeeyey in falkaasi uu yahay mid muujinaya sida ay Israa'iiliyiinta u neceb yihiin shakhsiyaadka muhiimka ah ee nidaamka dowladda Iiraan. mar horeba ma aysan jeclayn, laakiin taasi waxay caddaynaysaa in bartilmaameedyo kala duwan Israa'iiliyiinta ay leeyihiin iyagoo doonaya inay beegsadaan hoggaanka ugu sarreeya dowladda Iiraan. hadalkan wuxuu yimid kadib markii Israa'iil ay sheegatay inay dishay Cali Larijani, mas-uuliyiinta dowladda Iiraan ay xaqiijiyeen. sidoo kalena xubno muhiim ah la dhaawacay kuwaas oo la shaqaynayay Cali Larijani, halka saraakiil ciidanna la dilay. Mujtaba Khamenei marka wuxuu Larijani ku tilmaamay shakhsi lahaa waaye aragnimo ballaaran oo dhinaca siyaasadda, militariga, amniga iyo dhaqanka ah, isla markaana muddo ku dhow 50 sano ka soo shaqeeya heerarka kala duwan ee dowladeed, taasoo ka dhigaysa nin aad u saameyn badan, wax badanna og. dhinaca kalena waxa uu soo hadal qaaday dilka Ghulam Reza Suleimani, taliyihii ciidanka Basij. wuxuu sheegay in arrintaas ay muujinayso sida ay ciidamadaasi ay muhiim ay ugu yihiin dowladda Iiraan iyo sida ay cadowgoodu u beegsanayaan xubnaha ugu sarreeya ciidanka. gudoomiyaha baarlamaanka dowladda Iiraan Khalid Baaf ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in dilalka loo geystay madaxda dowladda Iiraan ay xoojinayaan mabda'a ah yacni saan ku gud, taas oo micnuhu yahay in jawaab adag iyagana ay bixin doonaan. waxaana uu tilmaamay in marxalad cusub oo dagaal uu bilowday, isla markaana dilalka shakhsiyaadka aysan waxba ka bedeli doonin awoodda iyo sidoo kale horumarinta nidaam ee dowladda Iiraan, maadaama uu ku dhisan yahay nidaamka dowladda Iiraan hay-ado kala duwan oo shakhsi uusan ku xirnayn. mas-uuliyiintan marka waxay sheegeen in ay aarsan doonaan oo aysan harsan doonin, sidoo kalena ciddii dilkaasi ka dambaysay ay cawaaqib adag la kulmi doonto. Mas'uud Pezeshkian, madaxweynaha dowladda Iiraan, ayaa dhankiisa wuxuu xaqiijiyey dilka wasiirkii sirdoonka ee dowladda Iiraan Ismaaciil Khatib, isagoo cambaareeyey weerarada lagu beegsanayo kaabayaasha tamarta ee dalkiisa. wuxuu sidoo kale uu sheegay falkaasi in wax faa'iida uusan u keeni doonin Israa'iil iyo Mareykanka, balse xaaladda oo kaliya ay sii adkeyn doonto. wuxuu yidhi, annaga mas-uuliyiinta dowladda Iiraan marka la dilo kuwo kale oo kasii adag ayaa imaanaya, xaalkuna wuu sii adkaanayaa. haddii la beegsado xarumaha shidaalkana annaga ma beegsan doonaa. dhinaca diblomaasiyadda, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Iiraan Cabbaas Araghchi ayaa waxaa la sheegay inuu la xiriiray mas-uuliyiinta arrimaha dibadda ee midooda Yurub, waxaana uu kala hadlay in taageero kasta oo ay reer Yurub bixiyaan oo Mareykanka iyo Israa'iil ay ku garab istaagaan inay noqon doonto in ay ka qayb qaadanayaan ama ay u aqoonsanayaan ka qayb qaadashada dagaalka iyo dembiyada ka dhanka ah shacabka dowladda Iiraan. waxaa sidoo kale uu dhaliilay waxa uu ku tilmaamay laba wajiileynta ay sameynayaan dalalka qaaradda Yurub qaarkood. Araghchi ayaa ugu baaqay midooda Yurub inay cadaadis ay saaraan dhinacyada dagaalka wado oo uu kala jeedo Mareykanka iyo Israa'iil si gabi ahaanba loo joojiyo howlgalka military, halkii ay qaadan lahaayeen mowqif uu ku tilmaamay kuwa aanan mas-uuliyad ahayn. yacni halkii ay garab istaag u muujin lahaayeen Mareykanka iyo Israa'iil, wuxuu yidhi doorkiina qaata si dagaalkani loo soo gabagabeeyo. waad garanaysaan cidda dagaalka wadda ee aad yacni doonaysaan inaad garab istaagtaan. halkan marka maxaan ka baran karnaa? waxaan ka baranaynaa in mas-uuliyiinta qaar ee dowladda Iiraanna fariimahan jawaad ah oo dhanka militariga ay dirayaan, qaar ka mid ah dhanka diblomaasiyadda ay ciyaarayaan. waana inta badan sida lagu yaqaano siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda Iiraan iyo hadallada aadka u adag marka warbaahinta la joogo, miiska wadahadalka marka la isugu yimaadana ay isticmaalaan diblomaasiyad ka duwan tan laga malaysanayo. maxay kula tahay adiga? qaybta hoose aragtidaada ku reeb, like sar muuqaalka. ugu dambeyntii, dowladda Ruushka ayaa cambaaraysay weerarkii lagu beegsaday Cali Larijani. madaxtooyada dowladda Ruushka ayaa si cad u sheegtay in arrintaasi si weyn xukuumadda Moscow uga soo horjeedo, kadib markii warbaahinta ula hadlay Dmitry Peskov, afhayeenka madaxtooyada ee dowladda Ruushka. dhinaca kalena waxay shaacay ka qaadeen mas-uuliyiinta dowladda Ruushka inay garab istaag u muujinayaan markasta dowladda Iiraan oo ay garab taagan yihiin. dhinaca iyo marinka Gaza haddii aan eegnana, hal ruux ayaa geeriyooday, ruux kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii Israa'iil ay duqeymo ay ka fulisay marinka Gaza. sidoo kalena 16 haween ayaa lagu waramaya Israa'iil inay ku xirtay dhanka iyo daanta galbeed. arrimahan oo idil iyo macluumaadyadan waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagaya insha Allah. like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay.